kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo fulisay heshiis ay la gaartay koonfur galbeed maxaase ka dhacay maanta magaalada Baydhabo warka rasmi radio ayaa ku daawan doontaan gaariga agaasimaha ciidanka hay'adda BSF oo lagu rasaasayay magaalada Boosaaso iyo ciidda saarnayd warbixin gaar ah ayaan idinka haynaa yaa faa'iido ku qaba kala tagga Fahad Yaasiin iyo Farmaajo fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir barahayaga bulshada oo page-ka iyo waliba channel-ka labadaba follow iyo subscribe noo saar mahadsanidin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay qaaday xayiraadii dhinaca socdaalka ee ay ku soo rogtay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed kuwaasi oo hore qaarkood looga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xayiraadda ay qaaday kadib waxaa suuro gashay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay gaaraan magaalada Baydhabo iyadoo arrintan ay qayb ka tahay fulinta heshiis ay gaareen maamulka koonfur galbeed iyo fila Soomaaliya xildhibaanada tagay magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah xildhibaan Sareedo Maxamed Cabdullaahi oo maalin ka hor laga celiyay magaalada Muqdisho iyadoo laga reebay diyaarad ku socotay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xildhibaan Sareedo iyo wafdi ay hogaaminaysay ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo iyadoo kadib loo galbiyay madaxtooyada koonfur galbeed oo halkaasi ay kula kulantay madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeya Cabdicasiis Laftagareen arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo haatan ay yara qabowday xiisadda u dhaxaysa dowladda dhexe iyo waliba koonfur galbeed kadib dadaalo dheeraad ah iyo waliba dhexdhexaadin la sameeyay si la isugu soo dhaweeyo Laftagareen iyo fila Soomaaliya oo kala fogaaday labada dhinac ayaa isku afkartay qodobo dhowr ah oo horudhac u noqonaya heshiis lagu soo afjarayo xiisadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Laftagareen u dhaxaysa waxaana dadaaladaasi hormuud u noqday taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taliye Shub waxaa sidoo kale heshiiskan qayb ka ahaa in duulimaadyada iyo isku socodka diyaaradaha ee aadaya dhinaca koonfur galbeed gudaheeda iyo waliba magaalada Muqdisho sidoodii caadiga ahaa ay ku soo laabtaan oo aan la carqaladeynin taas oo maanta dhaqan gashay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ka cararaya in uu ku furmo albaabka doorasho dadban ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii Cabdicasiis Laftagareen uu u imaan lahaa magaalada Muqdisho si xiisadda haatan taagan uu uga gaaro xal dhab ah una u meel marsado shuruucda qabyada ah ee ka dhiman ee dhinaca doorashooyinka qof iyo codka ah ee la doonayo in Soomaaliya ay ka dhaqan gasho gaari u lahaa agaasimaha ciidanka hay'adda BSF General Maxamuud Cismaan ayaa waxaa lagu rasaasayay gudaha magaalada Boosaaso sida uu xaqiijiyay agaasimaha General Maxamuud oo la hadlay telefishinka SBC ayaa waxa uu sheegay in gaariga la rasaasayay uu ahaa gaari Land Cruiser ama loo yaqaano Layla Calaawi oo xilligaasi marayay gudaha magaalada xilliga gaariga la rasaasayay ayaa waxaa saarnaa qoyska agaasimaha oo uu sheegay in markaasi ay ka soo laabteen safar dhinaca magaalada banaankeeda ama reerka ay uga xagaabaxeen gudaha magaalada Boosaaso agaasimaha hay'adda BSF ma uusan faahfaahin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rasaasayntaasi la rasaasayay gaarigiisa hase ahaatee wixii ka soo kordha waxaan idinkula wadaagi doonaa wararka dambe haddii eebaydmo dhacdadan ayaa imaanaysa xilli magaalada Boosaaso ay ka taagneyd xiisad xooggan oo u dhaxaysay hoggaanka ciidanka BSF iyo xukuumadda Siciid Cabdullaahi Dani dhawaan ayay ahayd markii ciidamada BSF iyo maamulka Puntland ay isku qabsadeen garoonka diyaaradaha kaasi oo maalmo u xirnaa kadibna ay ciidamada BSF ka digeen in diyaaradaha adeegsada ay garoonkaasi isticmaalaan inkastoo shaqada garoonka ay hadda si caadi ah ay ku soo laabatay haddana waxaa magaalada Boosaaso ka taagan xiisad u dhaxaysa hoggaanka ciidanka BSF iyo waliba xukuumadda Siciid Cabdullaahi Dani taas oo haatan maraysa meel xasaasi ah oo aad u adag taliyihii hore ee ciidanka gobolka Gado Cali Xaashi oo aad ugu dhawaa kooxdii nabad iyo nolol ayaa waxa uu bixiyay xog xasaasi oo ku aadan kala tagga siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Fahad Yaasiin Cali Xaashi oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable ayaa waxa uu sheegay in kala tagga Farmaajo iyo Fahad uusan ku ekayn oo kaliya labadooda isla markaana ay jiraan saaxiibo aad ugu dhawaa Fahad Yaasiin oo uu la go'ay kuwaasi oo ka baxay xisbiga nabad iyo nolol Farmaajo iyo Fahad waxay ahaayeen laba nin oo odayaal ah oo soo wada shaqeeyay dhib ama ha isku qabaan ama dheef ha isku qabaan labadooda oo kaliya xitaa ma aysan kala go'in ee waxaa kala go'ay kooxdii isaga oo saaxiibadiisii Fahad
uu horey usii kaxaystay. taliyihii hore ee amniga gobolka Gado Cali Xaashi oo sii hadlayay ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyay sababta ay u kala tageen labada nin, wuxuuna ku macneeyay in rabitaan fara badan oo ka yimid dhinaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay arrintani sababtay kadibna uu ku qanci waayay Farmaajo. dhinaca kale waxa uu ka hadlay cidda faa'iidada ku qabta kala tagga Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, wuxuuna sheegay in ninka faa'iidada ku qaba uu yahay madaxweynihii hore ee dalka soo xukumay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. halka warkaasi kala socotaan waa Rasmi Radio. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir barahayaga bulshada sida Facebook iyo waliba channelka oo ah Rasmi Radio.